bismillaahi raxmaani raxiim kulantii wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada raadka dhacdooyinka barnaamijka waxaan ku eegi doonnaa sheekada ninkii reer maraykan ee maangelyada ka helay guriga usaama bin laadin ku soo dhowaada mar kale iyo raadka dhacdooyinka. john walker linda waxa uu ku dhex barbaaray qoys dabaqad dhexe ah oo haysta diinta masiixiga ee madhabta kaatooliga ah. waxa uu ku barbaaray magaalada mill valley ee san francisco. dunida ayaa ninkan ugu taqaana daalibaanka maraykanka. john walker linda ayaa ahaa qofkii ugu horeeyey ee maraykan ah ee la xiro kadib markii uu bilowday dagaalkii argagixisada. madaxweynihii maraykanka ee xilligaas george bush ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah argagixisada kadib dhacdadii 11 sebteembar 2001. john walker ayaa lagu qabtay bakistan. waxa uu ka mid ahaa unug militari oo ka tirsan daalibaan oo ay ku jiraan 75 qofood oo ajnabi ah. bishii luulyo 2002 waxa uu yidhi waxaan qirtay dembigayga, waxaan ahaan jiray askari daalibaan ka tirsan intii u dhexaysa bishii agoosto ilaa diseembar ee sanadkii hore. waxaan qaadan jiray qori iyo 2 bam gacmeed. waxaan ku samaynayay rabitaankayga anigoo xor ah, weliba anigoo og inay sharci darro tahay. john walker ayaa hadalkaani sheegay kadib markii uu heshiis la galay xafiiska xeer ilaalinta. xukunkiisa oo ahaa xabsi daa'in ayaa laga dhigay 20 sano oo xabsi ah. balse su'aashu waxay ka imaanaysaa sidee nin dhalinyaro ah oo reer california u noqday jihaadoon oo uu ku gaaray xero tababar ciidan oo uu maalgeliyay usaama bin laadin. laga soo bilaabo malcolm x ilaa usaama bin laadin, inkastoo lagu soo barbaariya deegaan laga haysto madhabta kaatooliga ah, haddana doonista john walker ee ku aadan diinta islaamka waxay ku dhalatay isagoo da'yar. aabbaha john walker frank linda ayaa sheegay in isaga oo 12 jir ah uu aad ula dhacay sawirada maka ee filimka la yidhaahdo spike lee malcolm x. halkan baadigoobkiisa ayaa ka bilaabmay. ugu dambayntiina maalin ayuu qaatay diinta islaamka. cabdulaahi naana oo ah imaamka xarunta islaamka ee mill valley ayaa waraysi uu BBC-da siiyey sanadkii 2001 ku sheegay in john walker uu wareersanaa xilligaas, ma garanaynin meel adduunkan uu ka aadi doono, sidaasi darteeda waxa uu raacay waddada diinta islaamka. sida uu sheegay cabdulaahi naana, wax yar kadib markii uu qaatay diinta islaamka, john walker waxa uu la xidhiiray ururkiisa si uu u barto luuqadda carabiga una fahmo qur-aanka. isagoo 17 jir ah, waalidka john walker ayaa u oggolaaday inuu aado yeman si uu u soo barto luuqadda carabiga. john walker waxa uu ka soo laabtay yeman. waxa uu ku soo noqday california dhowr bilood kadibna waxa uu ku noqday yeman. isaga oo jooga yeman ayuu aabbihii warqad u qoray isagoo weydiisanaya inuu aadi doono bakistan si uu u sii wato waxbarashadiisa diiniga ah. aabbihii ayaa ku jawaabay, waxaan aaminsanahay go'aankaaga, waxaanan rajaynayaa inaad ku raaxayso tegitaankaas. intaas kadib john walker waxa uu iska diiwaangeliyey madarasada ku taala magaalada baanu ee gobolka khaybar ee dalka bakistan. halkaasna waxa uu ka bilaabmay rabitaankiisii xagjirnimada isagoo aan ogeysiinin waalidkiis. maalin maalmaha ka mid ah john walker waxa uu ka gudbay xadka wuxuuna gaaray afghanistan bishii juun 2001. john walker ayaa tababar ciidan ku qaatay xerada tababarka al-faaruuq muddo 2 bilood ah isagoo gacan ka helaya kooxa xagjir ah. xeradan tababarka waxaa lagu maalgeliyey lacagta usaama bin laadin. isla sanadkaas john walker ayaa 2 jeer la kulmay hogaamiyaha al-qaacida usaama bin laadin. si kastaba ha ahaatee, frank linda ayaa sheegay in wiilkiisu uusan wax lug ah ku lahayn argagixisada. waxa uu BBC-da u sheegay sanadkii 2011 john waxa uu ka mid ahaa kumanaan muslimiin ah oo la dagaalamayay isbahaysiga waqooyiga afghanistan oo ruushka uu taageero. hase yeeshee michael kortof, kaaliyaha xeer ilaaliyaha guud ee ku lug lahaa dacwada john walker, ma uusan rumaysanin doodii frank linda. waxa uu BBC-da u sheegay 2011 waxa uu u shaqo tegay hay-adda u aragta in maraykanka uu yahay cadowgeeda. ururkaasna waxa uu taageeray weeraradii 11 sebteembar 2001. samaynta weeraradii 11 sebteembar, john walker waxa uu ka mid noqday 75 nin oo ka kooban dagaalyahano oo afghanistan u dhalan oo ku sugnaa gobolka tahaar ee afghanistan. isla waqtigaas waxaa dhacay weeraradii 11 sebteembar. wax walbana waa isbedeleen.
maraykanku wuxuu go'aansaday inuu weeraro afghanistan uu xukunka ka tuuro daalibaan toddobaadyo gudahooda afghanistan waa la duqeeyey kooxda john walkerna waa inay la yimaadaan dagaal aargoosi ah marka uu marayey saxaraha Qundus waxa uu isu dhiibay isbahaysigii waqooyi john walker waxaa lagu xiray qalca jangi ee magaalada Mazar-e Sharif oo gacanta uu ku hayo hogaamiye kooxeed u dhashay Afghanistan oo la yiraahdo Jenaraal Cabdirashiid Dostum balse waxaa jiray rabshado uu dhiig badan ku daatay oo uu horseeday kacdoonkii maxaabiista Taliban oo boqolaal maxaabiis ah lagu dilay sargaal CIA la shaqeynayay oo ka tirsanaa isbahaysiga waqooyiga ayaa isna ku dhintay dhacdadaas John Walker isagana xabad ayaa lugta kaga dhacday wuxuuna naftiisa ula cararay dabaq hoose ee dhismaha John Walker oo la ildarnaa xanuunka ka soo gaaray xabadda ayaa lagu qabtay December 2001 halkaas oo ay ku xireen ciidamada Mareykanka Talibanka Mareykanka wax yar kadib markii la xiray dadka adduunka oo dhan waxay bilaabeen John Walker inay ugu yeeraan Talibanka Mareykanka Frank Linda ayaa helay war ku saabsan xariga wiilkiisa 7 bilood kadib markii ay warbaahinta qortay dhankan kale ma uusan ogeyn halka uu joogay John Walker sida laga soo xigtay Frank Lindo wiilkiisa ayaa la geeyay saldhigga Mareykanka ee Cambrino oo 190 kiiloomitir koonfur galbeed kaga xiga Kandahar John waxa la dhex geliyay weel bir ah isagoo waliba qaawan muddo 2 maalmood ahna waxba lagama qaban dhaawicii ka soo gaaray saxaraha Afghanistan xeer ilaaliyaha guud John Ashcroft ayaa ku tilmaamay John Walker inuu yahay xagjir al-Qaacida soo tababartay oo Taliban la shirqoolayay si ay u laayaan dadka rayidka ah kadib markii ay soo shaac baxday xogtan ereyga Talibanka Mareykanka ayaa dhashay waxaa jiray sawirro laga qaaday si loola dhaqmay John Walker intii la xirayay kuwaasoo qareenkiisu adeegsaday intii dacwada ay socotay sawirada laga soo qaaday xerada Reno waxaa laga arki karaa John oo cagacad oo saaran barelle indhaha iyo gacmahana ka xiran qareenka John ayaa maxkamadda u sheegay in macaamilkiisu si xun loola dhaqmay sida ku qoran buugga uu qoray Toby Hondon John ayaa la sheegay inuu FBI-da u qirtay inuu wax ka ogaa qorshaha al-Qaacida ku doonaysay inay ku weerarto Mareykanka xilligii xukunka lagu riday bishii Oktoobar 2002 John waxa uu ku andacooday inuu khalad sameeyay markii uu ku biiray Taliban waxa uuna si gaar ah u cambaareeyay argagixisada kadib markii uu xabsiga ku jiray 17 sano sanadkii 2019 warar ayaa soo baxay in John lagu fasaxay siideen sharafeed balse waxaa lagu soo rogay xayiraad ah inuusan isticmaali doonin internetka sidoo kale waxaa laga mamnuucay inuu dalka ka safro ma jiro wax war ah oo ku saabsan halka uu hadda u joogo John Walker